ورحمة الله وبركاته واللبدا بشا جماد الثاني سنة كنا فربغلا فرطانية تضبط تاريخ ده هجرية وصبح لما أحد ميلاد يضم يكون بيغان تايسدح إلا باتن كبشا كوي طبانات سنة كلابا كنشان إلا باتن قضبدا هو برنامج كينا أروني مساكا وحاكم دا حوتيين تدالك يمن أيا أقودن بين دل توغشكو حكومي تضبط إيا طبان ay ku eedeeyeen inay ka tirsanaayeen jawaasiista Mareykanka iyo Israa'iil oo ay ku qabteen gudaha dalka Yemen sheeko yaab leh oo arinta ku saabsan Xuutiga oo muuqda inay waarayaan ra'iisul wasaarahoodii laga dilay iyo golihii wasiirada qaar ka mid ahaa faahfaahin arinta ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heynayana waxa ka mid ah ciidanka Israa'iil ayaa lagu waramayaa mar kale inay wajahayaan xaalad caafimaad darro oo aad u daran kadib markii ay warbaahinta Israa'iil iyo qaar kale oo kamida warbaahinta caalamka ay qorayaan in 2 milyan oo ka tirsan militariga Israa'iil ay xaalad aad u liidato oo dhanka dhimirka ay wajahayaan shaka yaablo arinta ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobada sidoo kale aan aroornimadan barnaamijka idinku heynayana waxa kamida hogaamiyaha sare dalka Iran Ali Khamenei ayaa xilka ka qaaday taliyaha guud ciidamada dhulka Iran iyadoo loo magacaabay taliye cusub oo xilka la wareegaya xilli Iran ay ku dhawaaqday inay u diyaar garoowaysa dagaal adag oo ay la gasho Israa'iil xaaladu faraha ay ka sii baxaysa qodobka ugu dambeeyana barnaamijka waxa idinku hayaa Hamas waxa ay ku dhawaaqday in uu burburay heshiiskii Sharm el-Sheikh burburisayna Israa'iil maxay tahay sababta maxay doonayaan wafdiga Hamas ka socda ee ku sii socda halka ay Qaahira yana faahfaahin baan idinkaga hayaa guud ahaan xaaladda bariga dhexe iyo gaar ahaan soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkana waa Kow Somali Media aynu ku bilowna barnaamijkeena aroornimo sida ay saaka qorayaan warbaahinta caalamka iyo kuwa Israa'iil kuwa Yemen waxa la tilmaamayaa in Xuutiga ugu dambeyn koox la sheegay in ay ka tirsanaayeen UN-ka oo la qabtay bishii hore bartamaheeda ay ugu dambeyn maxkamad ku taala magaalada Sanaa ku xukuntay dil toogasho 17 kamida iyagoo qaar kalena ay yihiin xukun sugayaal 17 kale ayaa la sheegay dhawaan in surka loo dheereen doono oo halka lagu dili doono dilka toogashadan lagu fulinayo maxkamadda ku taala caasimada dalka Yemen ee Sanaa ayaa sheegtay in 17 kani ay ka tirsanaayeen kooxo jawaasiis oo lagu soo fasaxay gudaha dalka Yemen iyadoo Xuutiyiintu ay sheegeen dabagal ay muddo dheer ku sameeyeen inay ogaadeen inay jiraan koox shabakada oo isku xiran oo ay tilmaameen inay wada hoos imaanayeen sirdoonka Israa'iil Mareykanka iyo Sacuudiga 17 kan la qabtay xukunkana lagu fuliyay waxa ay qayb ka yihiin shabakadaas kooxdan ayaa la tilmaamay inay ku dhow yihiin 100 qof Xuutiyiintu waxay hore u sheegeen cid walba oo looga shakiyo inay jawaasiis yihiin gudaha deegaanada Xuutiga qaybaha Yemen ay ka taliyaan lagu dhax arko in talaabo adag laga qaadayo maxkamadda dilka ku xukuntay 17 kan waxa la sheegay in ay ka kala tirsan yihiin ragga kooxda la xukumay ama ay ka soo jeedaan Britain, America, Israel iyo wadamo kale tani waxa ay muujinaysaa sida Xuutiga ay uga go'an tahay inay gabi ahaanba baabi'iso in gudaheeda loogu soo dhuumaalaysto ama loo soo galo in wax jawaasiisa ama macluumaad laga helo Xuutiga ayaa dhanka kale waxa ay muujiyeen inay dabagal xoogan ku hayaan dhanka amniga iyo ka warqabka sirdoonkooda iyagoo la sheegay inay isbedel weyn sameeyeen oo dhanka sirdoonka ah qaar kamid ah kooxahani markii la qabanayay waxa la sheegay in iyaga laftirkooda muddo la daajinayay oo sirdoonka Xuutiga uu muddo ku guda jiray oo uu ku mashquulsanaa qaramada midoobay ayaa aad u cambaaraysay dilka lagu xukumay 17 kan iyagoo ku eedeeyay in Xuutiga waxa ay sameeyeen ay tahay xadgudub horey Xuutiga waxa loo xoojiyay cunaqabatayntii dhanka hubka iyo ganacsiga ee saarnaa inkastoo Xuutiga hadda ay muujiyeen wixii ka dambeeyay heshiiskii Sharm el-Sheikh inay ka khafiifiyeen go'doomintii ay galiyeen Israa'iil gaaraan dhanka Bab Mandab haddana Xuutiga waxay hore u balan qaadeen mar walba oo ay Israa'iil soo celiso dagaalka Gaza inay iyaguna soo celinayaan cunaqabatayn iyo tallaabo walba iyo duqayntii ay Israa'iil ku qaadi jireen
dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa digniin adag u jeediyay Xuutiyiinta isagoo u sheegay haddii ay amniga Israa'iil mar kale qalqal galiyaan oo ay soo hujumaan oo ay soo weeraraan inay qaadi doonaan tallaabo adag oo ka dhana Xuutiyiinta dalka Yemen. laakiin Israa'iil uma muuqata inay horey wax u reebatay marka laga waramayo weerarada Xuutiga ee dagaalada kala dhaxayo. horey militariga Israa'iil waxa ay dhowr jeer u weerareen magaalada Sanaa iyo sidoo kale magaalada dekada ee Xudayda iyadoo intaaba ay Israa'iil u suuragelin in wax weyn oo burbura ama hakad gelinaya weerarada Xuutiga ay geysato. labadii sano ay weerarka ka waday gudaha Gaza, Israa'iil cidda kaliya sida tooska ula dagaalamaysa ama weerarada uga dhaxaysay waxay ahayd sida muuqatay Xuutiyiinta dalka Yemen. lama garanayo Xuutiga inay durbaba dagaalka dib u bilaabi doonaan oo ay weerarada Israa'iil bilaabi doonaan marka ay Israa'iil sidan ku sii socoto. laakiin ballantii hogaamiyaha Cabdimalik al-Xuuti ayaa ahaa in iyaguna ay bilaabayaan mar walba Israa'iil ballanta ka baxdo. waayaha walaalaha ay saaxiibada qiimiga leh kooxdan la xukumay ayaa la sheegay howlgalka lagu soo eedeeyay inay sameeyeen ama ay galeen faldambiyeedkooda. waxay maxkamadda magaalada Sanaa sheegtay inay dambigaasi galeen 17 xilli xasaasi ah oo ay Xuutiga ku jireen iyo dadka reer Yemen dagaal adag oo ka dhana Israa'iil. waxaana la sheegay xilligaasi in ay intii u dhaxaysay sanadka hadda aynu ku jirno 25 ee gabagabada 2025 ilaa sanadkii aynu ka soo gudubnay 2024 intii u dhaxaysay. qodobka markay meesha u gudubno walaalaha qiimiga leh waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka ee ku saabsan 2 milyan ee ka tirsan militariga Israa'iil xanuunka dhanka dhimirka aad ula liito iyadoo horey ay Israa'iil ugu dhibtanayd dhinaca xanuunka iyo ciidamada isdilay. hadda waxaa soo baxay war kale oo culus oo tilmaamaya sida uu qoray wargeyska ka soo baxay Israa'iil Adiot Anod iyo sidoo kale wargeyska The Middle East iyo kuwa kaleba in la tilmaamay 2 milyan waa tiro aad u badan oo ciidanka Israa'iil ka tirsan inay aad ugu dhiban yihiin xanuunka dhanka dhimirka ah. waxay waliba warbixinta inta ku daraysaa dadkan musiibada ku dhacday waxa ay tahay 2 milyan ma seexan karaan habeenkii ilaa kaniini hurda ayaa ku baxayso, taas oo mar kale budgetka dhaqaalaha ciidanka Israa'iil kor u qaadayso, tirada ciidanka aad u yaraynayso. 2 milyan waa tiro aad u badan iyadoo Israa'iil hore u dalbatay inay u baahan yihiin 15,000 oo askar ciidamo cusub ay hesho. marka 2 milyan waa wax aad u badan oo Israa'iil oo dhan yarba 2 milyan macnaheedu waxa waa ciidankeedii oo dhan inta badan way xanuunsan yihiin. waa musiibo kale iyo aafo lama filaana oo Israa'iil hadda u baahan tahay inay si degdeg wax uga qabato iyadoo lagu eedeeyay wasaaradda caafimaadka iyo gaashaandhigga inaysan xil badan iska saarin militariga Israa'iil. sheekada yaab kale ee warbixinta la socota ayaa waxa ay tahay kooxdani xanuunka aadka ula dhiban waxa la tilmaamayaa inay u badan yihiin ciidamada Israa'iil ee ka soo dagaalamay Gaza. waxay warbixintu leedahay waxay la dhibtooyin PTS waxa la dhaho post traumatic stress oo ah xanuun ay ka soo qaadeen Gaza. xanuunka wuxuu kaga soo dhacay 2 sano ee dagaalka Gaza ay ku jireen intooda badan. macnaha dhimirkii warbixinta qaybo kamid waxay leedahay caruurtii dadkii wixii gubanay dhibaatadii ilaa meesha musiibo weyn ka dhacday 100,000 warbixinta qaar waxay sheegay dad ka badan inay ku dhinteen iyadoo hadda wasaaradda caafimaadka Gaza ay sheegayso ku dhawaad 10,000 in ay ku jiraan meydadkooda wali guriyihii burburay oo u baahan in laga soo saaro oo ay musiibadu wali socotaa. Israa'iil ay wali u fakaraysaa inay Gaza duqayso. maanta ilaa ay xalay wararka Gaza ka imanay waxa ay sheegayaan 23 qof oo caruur u badan tahay ayaa lagu dilay Gaza kadib markii Israa'iil maalmihii la soo dhaafay duqaynta ay dib u bilowday iyadoo warbaahinta Israa'iil ay sheegayso in hadda militariga Israa'iil ay ku faanayaan inay direen saraakiil iyo madax ka tirsan Hamas. laakiin dhinaca kale wararka Al Jazeera iyo warbaahinta madaxa bannaan waxa ay yara tilmaamayaan in Israa'iil beegsanayso guryaha iyo goobaha dadweynaha aysan wali kala soocaynin, taas oo mar kale dhibaato weyn ku ah dadweynaha reer Gaza oo muddo halis iyo khatar weyn ciidanka Israa'iil kala kulmayay oo qaarkood hadda dib u soo noqday ku nool guryo burburay. qaar xitaa aan haysanin guryo burburmaysan bannaan cidla ay jiifaan iyadoo la tilmaamayo daawooyinka isbitaalada Gaza yaalla inay aad u yaryihiin xitaa isbitaalada dhisan ay yihiin kuwa faraq ku tirsan oo wali burbur ka muuqdo.
caruurta reer Gaza ma haystaan iskuulo iyo goobo ay markaa waxbarasho iyo nolol u doontaan tani waxa ay gelinaysaa dadka reer Gaza marxalad adag oo dhib badan waaye walaalaha ay saaxiibada qiimiga lahow marka aad isku soo duubto hadda militariga Israa'iil xaaladan ay wajahayaan laba sabab ayaa lagu tilmaamayaa midi waxa ay tahay kulanka ay la kulmayaan ama ay arkayeen askarta saaxiibadooda ee hortooda lagu dilay qaarkood kaari ay wada saarnaayeen ama kooxdii ay ka wada tirsanaayeen ayaa naafo noqday ayaa lugi ka go'ay qaar gacmii ka qaar dhintay waxaas ayaa hortooda ka muuqanay oo lagu baadiyay qoriga Yaasiin ayaa la tilmaamayaa inuu si weyn u dhibaateeyay militariga Israa'iil oo dhibaato weyn gaarsiiyay marka waxaasi waxa uu ku beeray taraamo qodobka labaadna waa midkii aan soo sheegno dadka hortooda ku dhibanayay oo shacabka reer Gaza ah qodobka meesha ugu gudbina waxa inoo soo socdo laba qodob midi waxa uu ku saabsan yahay Hamas oo ku eedeysay Israa'iil inay burburisay heshiiskii Gaza heshiiskii Sharm el-Sheikh ee dagaalka Gaza waan idin hayaa faahfaahin cajiib ah idinkaga diyaariyay iyo wafdi Hamas ka socdo hadda la sheegay inuu baxay dhanka iyo Masar si uu la kulmo sirdoonka Masaarida qodobada sidoo kale aad maqli doonto qaybta dambe ugu tagi doonto hogaamiyaha sare ee Iran ayaa xilkii ka qaaday taliyaha guud ee ciidanka dhulka Iran General Q Haydar iyadoo loo magacaabay Ali Jihan Sahan laakiin marka hore walaalaha qiimiga leh aynu ku yara hakano rajaynayaa inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan walaalaha qiimiga leh hogaamiyaha Iiraaniyiinta Ali Khamenei ayaa lagu waramayaa in uu xilka ka qaaday hogaamiyaha ciidamada dhulka dalka Iran oo kamid ah ciidamada ugu muhiimsan dalkaasi taliyaha dhulka General Qimer Haydari ayaa xilkaas muddo dheer hayay lana sheegay inuu yahay general khibrad weyn u leh dagaalka dhulka laakiin waxa la sheegay in lagu bedelay nin aad Iiraaniyiintu aaminsan in uu kamid yahay generaaladooda farakutiriska ee dhanka dagaalka iyo nashqada diyaarinta dagaalada lana soo saara baa leeyahay ama rag loo yeeraa marka Iiraan ay galaysa xaalad degdeg oo dagaal ayaa lagu wareejiyay xilkaasi taas oo ay qubarada militarigu tilmaamayaan in ay daliil cad u tahay in uu jiro dagaal ballaaran oo ay Iiraan isku diyaarinayso xilkan waxa loo magacaabay laga qaaday Qimersi General Ali Jihan Sahani oo isla markaa la magacaabayba ama isla markii lagu dhawaaqay in isaga loo dhiibay xilkaasi wuxuu ku dhawaaqay oo uu sheegay in Iiraan ay isku diyaarinayaan dagaal ballaaran oo ay la galaan Israa'iil waxa uu General Ali sheegay in Iiraaniyiintu hadda ay ku jiraan heegan military iyadoo ciidamada dhulka cirka badda Iiraan dhammaan la diyaariyay waxana hadda muuqanaya heegan iyo diyaar garow weyn oo la gelinaya nidaamka difaaca Iiraan lama garanayo waxa ku soo beegay xilligani diyaar garowga ballaaran oo ay galayaan ciidamada Iiraaniyiinta xilli Israa'iil ay sheegtay in la muhraan ay tahay in ay dagaal la galaan Iiraan waayo waxa ay sheegeen Iiraan joojinta wada shaqaynta ay joojisay hay'adda qaramada midoobay hubka nuclear-ka u qaabilsan ee loo yaqaano IAEA International Atomic Energy Agency in ay macnaheedu tahay in Iiraan ay hadda sameynayso halis weyn oo ka dhana Israa'iil macnaheedu ay tahay in ay diyaarinayso waliba ay boobsinayso sameeyshada hubka nuclear-ka Iiraaniyiinta ayaa hore ugu dhawaaqay in ballan walba ay la lahaayeen Israa'iil iyo Mareykan ay ku aadan xakamaynta hubka nuclear-ka in uu burburay kadib weerarkii lagu soo qaaday Iiraan iyo cunaqabatayntii la saaray iyo fashilkii ka dhacay wada hadaladii ka hor dagaalkii 12 maalmood socday oo ay dhaxdhaxaadiyaha ka ahayd dalka Oman ee ka dhacay Muscat caasimada dalka Oman iyo sidoo kale caasimada dalka Faransiiska Paris waayo walaalaha qiimiga loo qodobka ugu dambeeya barnaamijka Hamas waxa ay ku dhawaaqeen in heshiiskii Sharm el-Sheikh uu burburay ayna burburisay Israa'iil kadib markii maalmihii la soo dhaafay weerar ballaaran ay Israa'iil ku qaadeen gudaha Gaza iyadoo warbaahinta Israa'iilna ay si weyn u qoreysay in saraakiil iyo madax sare hogaamiyaal Hamas ka tirsan ay dileen inkastoo wali Hamas ay dhankeeda wax faahfaahin ay soo saarin laakiin warbaahinta Al Jazeera iyo kuwa kale ayaa qoraya in
la arkayay burbur weyn oo ay militariga Israa'iil mar kale u geysanayaan xarumaha qaxoodadka reer Gaza ay ku soo qaxeen oo ay qaxootigu ku yihiin isla dalkooda gaar ahaan magaalada Gaza. militariga Israa'iil ayaa maalmihiin la soo dhaafay waxaa la sheegay in mar kale ay dileen qaar ka tirsan dadweynaha reer Gaza, iyadoo tirada dhimashada dadweynaha reer Gaza ay hadda sii cagacageynaysa 300 iyo go oo dadka reer Falastiin 300 iyo dhowr qof, taas oo mar kale xaaladda meel adag gaarsiinaysa. 300 iyo dhowr qof oo ay militariga Israa'iil mar kale dileen ayaa waxaa la sheegay inay tahay tiradani kuwa dhintay kadib heshiiskii Sharm el-Sheikh. dhanka kale waxaa xaaladdu ay hadda meel adag sii maraysaa 200 ku dhawaad ee ku xayiran godadka ku yaala koonfurta Gaza, iyadoo hadda durbaba lagu waramayo dhaqdhaqaaq xooggan inuu halkaa ka socdo. Israa'iil ay walwal weyn ka muujinayso in haddii dagaalka uu dib u bilowdo ay khatar kala kulmi karaan ciidankooda godadka la sheegay in ay dhanka Israa'iil ay ku sugan tahay ku yaalaan. haddii dagaalka labada dhinac uu ka soo maro, Israa'iil waxay isku diyaarinaysaa in godadkaasi ay ku dhufato bam halis ah, laakiin dowladaha waaweyn Mareykanka, Turkiga iyo kuwa kale dowladaha muslimiinta ayaa waxa ay aaminsan yihiin bam walba iyo wax walba oo lagu dhufto godadkaasi in saameyntiisu ku ekaan karin oo kaliya meesha ay ku dhufanayaan, laakiin militariga Israa'iil iyo shacabka reer Gaza iyo cid walba halkaa ku sugan in ay ku reebi karto saameyn caafimaad oo waqti dheer dhibaato geysan karayso. isku soo duub, xaaladda bariga dhexe mar kale waxa ay galaysaa marxalad adag oo aad u dhib badan. Israa'iil weli waxay dhanka kale duqeyn ka wadaa gudaha Gaza. Xamaas dhinaca kale waxay wafdi u dirtay magaalada caasimadda ee dalka Masar, Qaahira. wafdigan ayaa la sheegay inay la kulmi doonaan saraakiisha sare ee madaxda dalka Masar, gaar ahaan madaxa sirdoonka, si ay ugala wada hadlaan burburinta ay Israa'iil burburisay heshiiskii Sharm el-Sheikh ee dalka Masar lagu qabtay, iyadoo dowladaha Masar, Turkiga, Mareykanka kuwa kale ay goobjoog u ahaayeen ahana kuwii damaanad qaaday. wixii arrintaa ka soo baxa barnaamijyada dambe ayaanu iskula dhigi doonaa. tan iyo inta aynu kulmayno barnaamijkana mid ka xigo, walaalkii Mustafa Cali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.